يعني waxaa loo baahan yahay mar walba qofka duruufaha uu ku sugan yahay in sideeda uu u qaabilo. Su-aasha inaan isweydiino rabaa waxay tahay maxay dadka qaarna waqtigooda ugu faa'iidaystaan oo dadka qaarna waqtigooda ee maalayacni iyo waxaan loo joogin ugu bixiyaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. saaxiibayaal soo dhawaada, magacaygu waa Cabdirasaaq Qariib. Waxaan rajeynaa dhammaantiina inaad caafimaad qabtaan sida anigu caafimaad qabo. Sidoo kale walaalaha muslimiinta qof walba oo xanuunsan waxaan u rajeynaa inuu Allah caafimaad degdega siiyo. Haddii ay tahay markaa kugu horeysa aad soo booqato YouTube channelkayga fadlan subscribe saar. Aad iyo aad u mahadsan tahay. Mawduuca maanta waxaan uga hadli rabaa waqtiga iyo muhiimadda uu leeyahay qofka bini'aadamka. Waxaan wada ognahay qof walba oo maanta dunidan ku nool waxaa jira wax aad iyo aad ugu muhiimsan wax walba. Maxaa is leedahay waxaas way noqon karaan? Waa waqtiga muhiimad gaar ah ayuu u leeyahay qof walba oo maanta dunidan ku nool. Ogowna maalinta qiyaamo markii la is soo taajiyo qof walba waxaa la weydiin doonaa oo la su'aali doonaa waqtigiisa iyo halka uu ku lumiyey iyo sida uu ugu soo faa'iidaystay. Muhiimadda uu waqtiga leeyahay ka dhalinyaro ahaan qof walba oo dhalinyaro ah waxaa laga yaabaa maanta in uu xaalad gooni ah ku sugan yahay. Qof walba waxaa laga yaabaa duruufo gooni ah in ay haystaan. Yani waxaa loo baahan yahay mar walba qofka duruufaha uu ku sugan yahay in sideeda uu u qaabilo. Yacni sida uu ugu baxsan lahay, sida markaas uu u maareyn lahay duruufaha ku hareereysan ayaa loo baahan yahay. Qof walba yacni wuxuu haystaa usbuuci ka kooban 7 maalmood. Sidoo kale maalinta oo ka kooban 24 saac. Su-aasha inaan isweydiino rabaa waxay tahay maxay dadka qaarna waqtigooda ugu faa'iidaystaan oo dadka qaarna waqtigooda ee maalayacni iyo waxaan loo joogin ugu bixiyaan. Ka dhalinyaro ahaan dadku markay dhalinyaro yihiin inta badan yani waxaa iska dhaadhicinaa waqti badanaa haysataa, dib danbaa wax ka samayn doontaa, xilligaasaa samayn doontaa. Yani waxyaabahaasaa mar walba niyadiina kusoo laabto. imika haysataa waqtigu yoo idinka lumin waqtigu idinka lumin waa waxa ugu qaalisan ee haysataan waa raasamaanka ugu badan waa waxa aan la iibsan karin oo la bixin karin oo la maahan karin oo meel kale laga soo heli karin daqiiqada ku dhaaftaa dib u soo heli mayso. waxaa xasuusaa qofku markii intii yani iskuulaadkii markaa dhigan jirnay ardayda inta badan waxay sameeyaan isbuuca imtixaanka markii la soo gaaro waxay bilaabaan in ay wax akhriyaan. isbuucaas markii loo yimaado kadib markii imtixaanka laga soo baxo inta badan ardayda waxay sameeyaan meel iskugu yimaadaan waxay iska wareystaan oo isweydiiyaan marka su-aashaasaa soo qalday su-aashaana kan ahaa waxyaabahaas iska wareystaan. waa aragtay inta badan ka dhalinyaro ahaan intii iskuulka soo dhigatay laakiin ardayda oo waqtigooda si wanaagsan ugu soo faa'iidaystay oo waqtigooda soo maareeyay maalinka ugu horeysay iskuulka bilaabanaya isla maalinkaas wax akhriska bilaabay kuma jiraan ardayda ka dooda ama ardayda dhaha su-aashaasaa soo qalday waqti badan haddaa haysan lahay waqtigaa igu yarahay dadka dhaha kuma jiraan inta badan. taa hadda halkaas ugu soo gudbo maareynta waqtiga aad iyo aad ay muhiim u tahay. waxay dhahaan waqtigu waxa qiimaha u sameeya waxa ka mid ah sida looga faa'iidaysto. saacaddii aanad ka faa'iidaysan waa bilaa qiimo. saacaddaad intaaj wax soo saartay cilmi ha noqdo maal ha noqdo wuxuu saacaddaad wax soo saartay waa saacad qiimo leh. si kale haddaanu tilmaamo hantida dhabta ah ee aad haysataa waa cimrigaaga. cimriguna waa waqtigu. marka waqtigu qiimo waa inuu kuu sameeyaa. secondsku inay qiimo kuu sameeyaan. waqtigu markaa waa wax u baahan inaynu si xooggan uga fikirno. aqalka yar inta saan u taabato fartu dib u soo noqon mayso. aduu waxaad salahayd marka hore mid eego ama laba ka daawo laakiin 4-3 saacadood baad ku jiraysaa saad farta saa ugu leedahay. waxaan lahaa dadka sida ay waqtiga kala maareyn badan yihiin ama waqtiga qof walba sida waqtigiisa u maareeyo ayuu guulal ugu gaaraa nolosha. sida aad waqtigaaga u maareyso maalintaada u maareyso ayaa guusha mar walba ay kugu dhowdahay. sidoo kale hadafyadaadana aad u xaqiijin kartaa. waxaa laga baahan yahay in aad waqtigaaga marka hore maareyso. haddii waqtigaaga aad maareynaysid yani uu ku qorshaysan yahay maalin walba waxa aad qabanayso booba la arkayo waxa maalayacni kaaga baxo. maareynta waqtiga aad iyo aad ay muhiim u tahay. inta aad dhalinyaro tahay waa inta aad fursado badan leedahay. qofka inta uu dhalinyaro yahay ayuu ka fursado badan yahay ama uu ka jaanis badan yahay marka uu da' noqdo ama da' ay u kordho. inta hadda oo jaanis aad dhalinyarada tahay waxaa muhiim ah in aad ka faa'iidaysato waqtigaaga aadan maalayacni ku lumin. maanta waxa adiga aad samaysato ayaa beri leedahay. maanta ayaa lagaaga baahan yahay in aad wax fiican beerato si aad beri u gurato mirahaasi. okay waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad jaamacad bilaawdo waxbarasho
waxbarasho inaad bilaawdo. Waxaa kaloo laga yaabaa inaad shaqo bilaawdo, shaqo abuur samaysato. Waxaa laga yaabaa in yacni wax un maskaxdaada ku jira in aad rabto inaad bilaawdo. Bilaaw hadeertaan qorshey. Intee waxa bilaabin marka hore qorshe u deji. Waxaan maxaa suurtagelinayo, maxaa caqabada iga imaan karo, sidee rabaa in hadafkayga ku gaaro. Wax walbo waxaa waaye in ay ku qorshaysan yihiin ayaa muhiima. Markaad qorsheyso kadib ku dhaqaaq. Bilaaw sida aad waxaas u samayn lahayd. Inta badan yacni qofka waxa uu qorsheynin hadduu bilaabo failure noqonayo. Marka waxaa laga baahan yahay in aad waxaa qorsheyso marka hore aad ka fikirto si wanaagsan. Intaas ayaa jeclaystay inaan ila wadaago maareynta waqtiga ku saabsanaa. aad iyo aad u mahadsantahay video dhammaadkiisa soo gaartay. Wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.